أيامهن وكع جناء أنا عتلدي هيو أنا فيديو يدي أن سوق قلنا هاي واصل عنقي واسبتلين تاريخه وحويان أغسطس 30 صدح هذا لبضة كن يشتري طبنكه أنا حكمة دي جمر دمعته أنا حكمتي بقى قبضتي أنا وي أمسسي حكمة بقى أمسسي أنا جو دأداسة يا وحنا هاي حول قب أما veteran كسر تقالمي أو كتقالمي دينا إسقاسينته جبهده حرينta Soomaali galbeed waqti badan iyo dadaal badan baan ku bixiyay hawl badan baan gutay waxaan soo arkaa inaan ahay hawl gab inaan ahay oo shaqadu soo daashatay waxa weeyaan ragii aan isku meesha ka dagaalami jirnay weeye hadda ragga qabsaday gobolka Soomaali galbeed anigu markii aan dagaalamay dagaalka markaan bilaabay faa'iido shakhsiyeed iyo mid aniga gaar ah iyo macaash aniga shakhsiyeed oo aan rabay in aan ku gaaro ma lahayn waxay ahayd in dadkaygu inay cadowga inuu aan ka dulqaado oo waxa ii ah raaxa iyo horumar iyo guul waxay ah guushooda dagaal dheer baan galay waqti badan baan ku bixiyay waxaan malanayaa xataa dad badan inay idhahaan oo yaqaana ama aan qaraabanahay ama inay dhahaan ninkani wuu waashay oo wuxuu ku waashay dagaalka uu ka ridayo maaragtay dagaalku galay iyo waxa weeyaan waxaan la yaabanahay dadku isku dhiig iyo isku aragti iyo isku ficil ma aha iyo isku si dadku isku si waxuma arkaan waxa weeyaan anigu midii aan u dagaalamay oo qof xataa dad aan weligay aanan is arag oo aan ismaqal ba waxay iga soo hadli jireen private bay ula soo hadli jireen waxay oran jireen niyahow maxaa la dhahaa warkaagu meel kastuu yaalaa oo hadalka meel kaste baad maaragtay ma baqaysi miyaa waxa weeyaan dagaalkaagu meel kaste baad ka wadaa oo maaragtay si badan baad u dagaalantay ma baqaysi miyaa iyo waxa weeyaan eragaas gabadhii ugu tiri waxa weeyaan xoogaa way i baqdin gelisay because waxay i tustay gabadhaasi inay walwal aniga nafteeda ka qabto anigu aanan ka qabin nafteyda marka waxa weeyaan waa ilaah baa kullay watay arrintan maxaa la way dhacday alxamdulillah guul weyn baa laga gaaray maxaa la dhahaa nimankii Tigreeg ahaana waa dhaceen waxaan islahaa anigu markii hore kuwa Soomaalida iska daa oo maaragtay Cabdi Ilay groupkiisa badooda ha gelin baa islahaa oo macnuhu waxay ahayd adeerow kan yar iga daay kan yar iga qabo kan weyn igu soo daabay ahayd oo maaragtay waxaan rabaa anigu inaan nimanka iga fog Tigreega inaan wax ka sheego
nimankan i garan kara cabdi ilay iyo groupkiisa inaan ka aamusaan rabay oo dulqaato markii dambena waxa weeyaan waxa igaga dhacday seefta igaga dhacday marka seefta markay igaga dhacday maalin maalmaha kamid ah yaa waxa yiri kulley hadda waxa weeyaan salaad kuma dhowrne waxa weeyaan dagaalka meesha ka sii wad alxamdulillah isku mar baana wixii oo dhan laga takhalusay maxaa la dhahaa sheekadan waxa weeyaan waa qaanuunka gaaladu ay ku maamusho adduunka ama ay siyaasadda ay dadka ku kala disho ay ku kala jebiso cadowgeeda baan anigu aad ugu dhabagalay muddo badan baan u fiirsaday waan bartay qaabkeeda qaabkaas baanan anigu ka duulahayay mar badan oo maaragtay waxa weeyaan weligaa horta qolana ha yasin weligaa qola lama yaso oo dee rabaan ha ahaadeen waxa weeyaan inaad qola yastid oo aad tiraahdid qoladan saasi weligood ahaan jireen marka saasaan ka filanahayaa weligood ama saasay noqon doonaan waa doqonnimada meesha ugu ballaaran waxa weeyaan in aad dulmi dad daashadayn inaad istiraahdo weligaa ilaahay ka dulqaadi mahayo ama dulmigii aad maaragtay ka dhigtid wax ilaahay maxaa la dhahaa wax ilaahay faral yeelay dulmiga ilaahay faral ma faral yeelin oo maaragtay weligaa ha iska dhaadhicinin dulmi in uu weligiis abaadahayo si kasta uu xoog badan yahay si kasta uu u baahsan yahay si kasta uu u badan yahay weligaa ha iska dhaadhicinin dulmigu inuu weligiis jiraayo dulmigu weligiis ma jiro waxa weeyaan waxa weeyaan waxaa kama dambays ah inuu dulmigu inuu dhaco waxyaalo waxaa jira maxaa la dhahaa waxyaalo waxaa jira ilaahay faral yeelay baa jira wax ilaahay faral yeelay waa kaas waad ku xisaabtami kadhaa in waxaasi uu weligiis jirahayo ilaahay wuxuu faral yeelay wax kasta wuu dhammaadaa waxaa laga duulaa ama waxaad ka duulaysaa mar kasta caqligaagu ha ku jiro aayaddan qur-aanka ah weligaa ha ku maskaxsaan qaaciidaha ku noqoto aad ku meel madhid oo ah aayaddii ahayd kullu shayin haalikun ilaa biwajhih kullu shayin haalikun ilaa biwajhih wax kaste oo aan ilaahay wejigiisa ka ahayn waa dhammaanhayaan ama waa halaagsanhayaan wax kaste dulmiga ku dar xataa dulmiga ku dar waxa weeyaan wax kaste oo aan ilaahay wejigiisa ka ahayn waa wax dhammaanahaya ayaga laftiisaa sii kala horumarahaya waxa ugu horeeya oo dhammaanahaya waxa ugu horeeya oo dhammaanahaya waxa weeyaan dulmiga ugu horeeya waxyaalaha dhammaada wax kastoo adduunka aad aragtid wax kasta kaasoo horbaxa way dhammaanahayaan wax kaste dulmigana ku dar marka wax kasta oo aad ogtahay inuu dhammaanahayo aad ka dhigtid oo dulmigu ugu horeeyo in aad ka dhigtid wax ilaahay faral yeelay waa caqli xumo midda ugu liidata ilaahay dulmiga ma faral yeelin oo dulmigu weligiis ma jirahayo meel kaste ha ahaado meel kaste adduunka dulmigu ha ka jiro waa kii dhammaada wax kasta waa dhammaanahayaan oo ay ilaahay wejigiisa ka ahayn waxyaalahaasna way sii kala horumarahayaan marka dulmiga Ethiopia ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed ama dulmiga uu cabdi ilay ku hayay shacabka Soomaaliyeed inaad ka dhigtid in ilaahay faral yeelay waa caqli xumada midda ugu liidata weeye kulli waxaas oo dhan waa dhammaanayaan wax kasta waqtiga rabaan dhamaadaan waa dhammaanayaan marka
ilaahay dulmi ma faral yeelin. waxa weeyaan kullu shayin haalikun ilaa biwajhih, wax kaste way dhammaanahayaan oo ilaahay wejigiisa ka ahayn. waxyaalahaasi way kala hormarayaan. hadda ilaahay wuxuu faral yeelay qoraxdu in ay subax walba soo baxdo, galab kastana dhacdo. ilaahay baa faral yeelay, waa ku xisaabtami kadhaa. ninkii khilaafa ama qofkii kuula yimaada ra'yigaas ra'yi ka duwan, waxa weeyaan si sahlan baad waxaad ku oran ka dhaawaniyahow caqli soconhaya maaha, orodagala tag. laakiin waxaa la siman dulmigu inuu dhammaanahayo. dulmigu waa dhammaanahaya. qofkii ku dhaha dulmigan wuu sii jirahayaana waxa weeyaan inaad tiraahdid niyagu wax magarataa tahay orodiga tag. marka anigu halkaasa ka duulahayay. waxaan ogaa dulmigu inuu dhammaanahaya, ogaa dulmiga Ethiopia ay ku hayso dadka shacabka Soomaalida ah, waan ogaa inuu dhammaanahayo. cabdi ilay dulmigu ku hayay dadka, waan ogaa inuu dhammaanahayo. marka taasaa waxay ugu kaliftay ama ii sahashay inaan meel kasta hadal ka dhaho oo meel kaste aan kala dagaalamo oo warbaahinta ah. waxa weeyaan dulmiga laftiisa siyaalo ku kala cimri degdega oo ah in kuwii dulmiga laftiisa sameynahayay in aad kala qaybisid, ayaga laftooda inaad kala qaybisid oo ayaga cadowga isaga dhigtid, iyo dulmiga kuwii dulmanaa inaad laftooda kicisid oo dhiirigelisid baa dedejinaya cimriga dulmiga. dulmigaas waa dhacay. ilaahay ajar iyo xasanaad ha naga siiyo. wixii wanaagsanaa oo aan shacabka u qabanay iyo wixii maaragtay dadaal lahaa iyo sanadadii dhammaa oo aan gelinay. maxaa la dhahaa dadka guusha usoo hayatayna shacabka iyo dadka danyarta ah, caruurta, islaamaha, masaakiinta, guusha usoo hoyatayna ilaahay ha ku anfaco. alxamdulilah. intaasaan kusoo koobahayaa. intaas iyo ismaqal dambe. waxa weeyaan muhiimaddu videogu u lahaa waxa weeyaan inaan sheego inaan ahay veteran ah, nin dagaalka Soomaali galbeed anoo da-yar baan howlgab ku noqday oo aniga iyo generaaladii ciidamadii siyaad barre u dagaalamahayay. waxaan ku kala duwanahay malaha.